بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada casharkeeni waxaan ka soo hadalnay buuggan qaybihiisii koowaad maamulka iyo waxyaalaha uu yahay waxaan kaloo ka hadalnay qaybaha loo qaybiyo waxaan kaloo ka hadalnay shaqooyinka maamulka qayb kamid ah waxaan u qaybinay ilaa 4 qaybood oo waaweyn iyo kuwa ka hoos baxbaxa afartii qaybood waaweyneed waxay ahayd planning ama qorsheyn wax la yiraahdo organizing in la organize gareeshay ama la isku aadiyo implementation in la fuliyo shaqadii iyo controlling in shaqadii la control marka qayb kamid ah qorsheyntii oo mid koowaad ah oo mid ugu muhiimsan oo maamulka u qabto ayaan waxaan ka soo hadalnay marka waxaan ka hadalnay laba qaybood in loo qaybiyo ilaa 4 qaybood qorshaha loo qaybiyo qorshe maalinle ah qorshe dhexdhexaad ah qorshe halkii ahaay aad u weyn iyo qorshe contingency plan la yiraahdo afartaas aan uga soo hadalnay midkii koowaad ugu horeeyay wuxuu ahaa qorshe maalinle ah qorshe maalinle ah rabnaa maanta marka inaan aan ka hadalno ayaan rabnaa qorshe maalinle ah ama qorshe waqti gaaban ayaa la yiraahdaa waa maxay qorshe maalinle ah ama qorshaha waqti gaaban waxa la yiraahdaa qorshaha waqtigiisu aad u gaaban yahay oo inta badan maalinle ah laguna talagalay in lagu qabto shaqo maalinle ah sidii hawshaas maalintaas taagan loo qaban lahaa يعني waxa ogtahay qofka maamulka ah maalintaas maamul asagoo ah maalin walbo shaqa laga rabaa inuu qabto maalin walbo shaqa laga rabaa inuu qabto tasks ayaa ku taagan taskiskaas marka ku taagan sidoo uu qaban lahaa tusaale ahaan inuu saleski maanta inuu gaaro targetkii saleska oo laga rabay inuu gaaro targetka saleska oo laga rabay inuu gaaro waxay u baahan tahay qorshe maalinle ah inuu dejiyo inuu yiraahdo agentiyan la xiriira agent hebel aan la xiriira agentigaas waxa waaye intaas aan ka rabaa oo targetka ah agent kale aan la xiriira intaas aan ka rabaa xarumahayga la xiriira intaas aan ka rabaa waxaas inuu halal u degsado lacagaha oo deynta uga maqan hadii jiraan inuu yiraahdo lacagaha intaas la eegan maanta deyn ku soo xareynaa si aan targetkii u gaaro hadii shaqo ama dhismo ama waxyaalahaas u yahay inuu yiraahdo dhismaha maanta materialka halkaas aan ka soo qaadaa qorshe la dhaw waxaas oo dhan jaay halkaas aan ka soo qaadi doonaa shaqadan finishing saasan u sameey doonaa yani waa maalin la waa macnaha maantaas shaqada oo qorshaha guud qayb ka ah oo maalintaas uga soo aaday ayaad waxaad sameynaysaa waa kala qoondeynaysaa kaas ayaa kala qoondeynaysaa marka targetka ama shaqada kugu taagan ayaa waxa u sameynaysaa waa kala jarjare subdivisions u sameynaysaa small oo kala jarjare qaab yar ayaa u kala jarjaraysaa markaas ayaa waxa soo bixi kara in shaqadii sidaas ay kugu noqoto shaqo hagaagsan waxa la dhihi karaa waa qorshe hawleed saas la dhihi karaa macnaha qorshe hawleed qorshe maalmeedkaas oo kale qorshe hawleed waxa uu adeegaa qorshaha dhexdhexaadka marka qorshahan wuxuu u adeegaa qorshaha dhexdhexaadka ah ee ka weyn qorshaha maalinlaha ah hadii maanta shaqadeedu ku qabsoonto shaqada isbuuca ku qabsoon lahayd qayb kamid ah ku qabsoonto waa tusaale ahaan qof waa qorshe qof horjooga ah ama supervisor ah oo ku fulinayo shaqo maalmeedkiisa qorshe maalmeedkiisa oo ku qabanayo ayaa la yiraahdaa waxay noqonaysaa marka qorshahaas qorshii dhexdhexaadka ahaa oo bilsha ahaa ama isbuuclaha ahaa ayuu u adeegayaa marka qorshahaas marka oo qorshahan maanta qabato qorshii isbuuca maalin kamid ah waa ku qabsoonto wixii aad ku aadis marka sidaas ay noqonaysaa maxaa looga baahan yahay qofka ama qorshaha maalinlaha ah
in laga helo maxaa looga baahan yahay kow waxaa looga baahan yahay deji ujeedooyin horta qayaxan ujeedooyin cadcad deji laba kala hormari shaqada aad rabto inaad qabato kala hormari maanta tanaan qabanaa saacadaas tanaan qabanaa saacadan tanaan qabanaa sheeg qiyaastaada aad rabto in aad wax u dhacaan ama u socdaan sida aad jeceshahay inay wax u socdaan ama wax u dhacaan sheeg waxaa dhahdaa sidaan ayaan rabaa inay maanta shaqadan 3 saacadood igu qabsantaa rabaa tan inay 2 saacadood igu qabsantaa rabaa hor inay 1 saac igu qabsantaa rabaa intaas waa halka qiyaasaysa waxaa kaloo muhiim u ah qorshaha maalinlaha ah caqabadaha jira fiir oo si fiican u dhuux macnaha caqabadaha jira tusaale ahaan maanta shaqadii aqaba lahayd caqabadaha ka hor istaagi karo dhan si fiican in u dhuuxdo oo aad ka fikirtaa laga rabaa okay diyaarso qorshe kale marka contingency plan qayb kamid ah waay oo maalinlaha ah macnaha qorshahan sidaan hadii tusaale ahaan ninka agentiga ahaa oo ku gambiyo sugaysay nin kale agentiga oo kale ama nin kale oo kale saddexaad si diyaarso intaas markaa sameeyso ku dhaqaaq fulinta marka يعني qorshayaashii marka inta sameeyso fulinteeda ku dhaqaaq okay deji hanaan marka aad wax u kontaroosho marka in control karto mar walba raac sida wax u socdaan macnaha hadii intaan aad soo dejisay ujeedooyinka dejisay qiyaastii sheegtay caqabadaha jira fiiriso waxa soo dhan caqabada aragtay jira deji hab u control karto shaqadan oo hadii inay okay hadartu saacad alarm ku buuxso shaqadaas in ay qabsoonto rabaa saacad hebel alarm ku soo boodayso shaqadaas ma ku qabsoontay ay ku dhahaysaa marka hadhowna marka wax waaye hadartu taskiga ku soo galaysanaysa uu ku soo boodaa hadhow wuxuu ku leeyahay shaqadaas laga rabaa inaad qabato marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh cashirkan maanta soo soo gabagabeynaa waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iido doontaan wixii talo iyo tusaale ahna waa nala soo xiriiri kartaan waa mahadsantihiin assalaamu calaykum